السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي الكسر دواد ورئيسي آد وحيس بدن وأن الله يلني مدن فيصل علي حسين وأه سياسي رئيس سومالي لنا وآد لوجي قانو جيجا سومالي دا فيصل مقعي عبد الكريم علي كار آد بان كوجسو دوينة يا تلفزيون كسومالي channel وأنا تكون هتسنت هاي فرصة دمانت آد نسيسي. ما هتسنت. هذيك مدن فيصل وحتى دبدي بيشن مقالة لنا كده عايشير لوجو تلاقي سومالي دا. Somaliland way ka baaqatay maxaad is leedahay sababta waxa weeye horta shirkaas waxa weeye shir Ingiriisku ku baaqay haduu ku baaqeen waxa weeye ajendaha shirka laga wada hadlaya wuxuu quseynay Soomaaliya waxaana wada dhigay habka u dhacay shirku dawladda Soomaaliya iyo dawladda Ingiriiska iyagana ka ahaa daadiyaal hogaamiye ama chairmankii waxa madaxweynaha Soomaaliya iyo David Cameron ra'iisul wasaaraha Ingiriiska marka anagu noogama banaaneen meel nimaadno wixii laga wada hadlayay hadda waan hayaa documentku dhan waan hayaa iyo waliba unclassified aan hayaa waxay si Soomaaliya dib loogu dhisi lahaa sectorskeeda loo dhisi lahaa Soomaaliya national army loo sameyn lahaa police loogu sameyn lahaa yani waxaan aan already samaysanay oo noo samaysan marka in la xoojiyo moojaane ayaa laga hadliyay marka siyaasadda oo ka lahaa Ingiriisku garan mayno markuu casuumiyo anaga Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa isku iman kana waxa weeye wada hadaladii ka bilaabnay Ingiriiska laba kal hore hadana Turkiga ku dambeeyay marka waxaan arkaa inay tahay sheeko uu Ingiriisku wato laakiin anaga aan noo dhadhami weeyday aan noo cunto weeyday kama dama waxa laga hadlayay siyaasad guud ahayn oo ay horumar iyo maxaan iraahdaa dib u dhis ciidamada iyo ahayd oo sidaan aduguba sheegtay ciidamada Soomaaliland ay xoojin u baahan yihiin hadii la helayo maxaad ku diidan inaad ka soo qayb gashaan oo ka faa'iideysataan fursadda uu caalamku Soomaaliya maanta ugu talagalay wax weyn laba wadano shirk isku level ma aha Soomaaliya maanta halka maraysa waxba ma maqlan bombinista magaranaysaa qarbigu had iyo gooraan wuxuu jecel yahay cirku maraya wuxuuna cimiyo lagu khatuuraa wax iska bedelay dawladda shariifka iyo dawladda ma jirto Soomaaliya wali Soomaaliya ma jirto way qaybsan tahay force kala jaajada haysa waxa waa propaganda sameynaya horumar baa la sameeyo marka laba wadano wax maanta meel laga wada bilaabi kara wadamada isku levelka ah ee shir loo wada qaban kara wadan u baahan magaranaysaa in laga dagaalamo extremeska laga saaro u baahan in stabilization loo sameeyo u baahan in reconciliation loo sameeyo u baahan in loo sameeyo administration loo sameeyo iyo wadan 21 years shaqeynayo fashion gareeyo intaas oo doorasho galay in meel isku wada yeera waxa warkana ifnimo ka socota ra'iisul wasaaraha Ingiriiska uu ka leeyahay propaganda uu ka leeyahay laakiin aan genuine ka ahayn oo reality on the ground runtu waxay ka taagantahay Soomaaliya iska natriyad moodaa waxaa jirta arrin kale oo shirka si toos ah looga wada hadlin laakiin lu kulahayd oo lagu damacsan yahay in Soomaalidu ay ku saxiixdo sharciga xuduudaha badda adduunka maadaama Soomaaliya iyo Somaliland aan si official ah wali loo kala goyn hadii sharcigaasi dhaqan galo wuxuu saameyn ku yeelanaya ama qabanayaba Somaliland markaas oo ma haboona anoo oginaadan dawladda ka tirsaneen oo aad mucaarad ka tahay haddana Somaliland maadaama aan wixii labadii dal wali la kala goyno saxiixyada iyo heshiisyada ay galayaan ay saameyn ku yeelanayaan inaad goobjoog ka ahaataan oo dhaxalka aabihiin meesha lagu qaybsanayo aad joogtaan oo go'aanka badda xuduudeynteeda aad wax ku lahaataan soo may haboonay horta waxa meeligiis loo hadda ku soo dhacday higiyadim leeyahay waxa weeye waa ooyasha ku jirta Indian Ocean bariga horena la isku qabsay Kenya ay haddana Ingiriiska iyo wadada Norwegian ay tanaynayaan waxaan dawladda loo buubiyo wax weeye in laga saxdo in badda la baaro la qodo lacagta ka soo baxda badna UNISOM la siiyo badna ay waqaataan badna Soomaaliya la siiyo dawladda Soomaaliya la siiyo wax loo socdo waa intaas waa interest waxa socota Ingiriis iyo Norwegian interest Soomaaliya horta meesha ma socdo Norwegian waa ka wada hadlaa bishii January in badda xuduudda badda la gaarsiin 200 kilometer
inay doonayaan si aanu baarlamaanka Norway Soomaalida uga hor imanin in baarlamaanka Soomaalida la casuumiyo Easterka waqtiga casuumada sadexday Jeermaanku laga raariyo in mashruuca soo socdo haddii dawladdu saxiixdo aan ka hor imanin in magaalada saay baarlamaanku waanu sheegnay waxaan anaga hadda doonaysan heshiiska badda ma xukunta xamare anaga xukuneen nala gala haddii kale wax ogaatay in Coast Guard leenahay anaga aan badiyada cid heshiis aan nasixin aan soo galin markaad ka tagtid qofkii dawladii iyadu awoodda leh 850 kilomitir baa anigu badiyada weeye aan Somaliland territory waa intaas weeye markaad ka tagtid la seexatid badda Somaliland nin xamar fadhiya oo hubiyo istaag karin awood ku lahayn oo marka awood ku lahayn istaagtid soo maaha uun inaad doonaysid inaad seexin qaadatid oo waxa doontid samaysid marka anaga cidii naga badiyada doonaysa inay isticmaashana anaga nala inoo iman doonta cid kala seexisay iyada ka operate garanayso ka implement garanayso marka anaga waxa weeye dawladii wax naga rabtaa dhulkii wax ka rabtaa dhul iyo badba in anaga noo timaado weeye laakiin ma anaga hoos geliso xasan sheekh oo meel aan xukumin tuulo aan xukumin in Cameroon yiraaho waa dawlad Soomaaliyeed waxba la seexanaya meel aan laga doonin laga helin magaalada say guul ayuu Cameroon guul ka doonaya waan arki doon wax ka raaca okay marka adiga Faysal ahaan anoo og in maxaan idhaahdaa xisbi la soo doortay oo cod wax ku oola oo reer Somaliland ay xisbigaaga ku ansixiyaan Faysal ahaan maxaad aaminsan tahay in sharciga badda la saxiixo mise in sidiisii hore loo daayo badda shaqo baxda UN laga rejistareeyay weeye dawladda Soomaaliya maanta mandate u haysata in badda Soomaaliya saxiixdo ma jirto adigu intaad u kaadiso dawladda Soomaaliyeed Faysal ahaan ma aaminsan tahay in badda 12 mayl lagu soo koobo oo sharcigii hore ee Soomaaliya u degsanaa oo 200 mayl ahaan laga soo yareeyo ma aaminsan tahay demakii markaan Norwich la hadlay 200 baa la geenaya ana say wiil ahayn may lama geenayo ana waa say wiil ahayn hadii 200 la geeyo 200 waa buu yahay ana waa say wiil yahay 150 200 baa la geenaya say Norwich wiil ahayn laakiin waxaan leeyahay waxa ay wataan gaalada ay wataan Westernku ay wataan Ingiriis hogaamiyo ay ku xigto Norway in la iska fiirsaa way ana la noola iman maayo waxa la noola imanayaa dawladda gacanta lagu abuuray ee habranaysa anu ma habrano la yalaabtaan sanaan jirno raashinka laga joojiyo xoolaha laga joojiyo lacagna ma siiyo laakiin waxaan ku leenahay sharaf oo dhulkayga baan la wixii aan socon dawladdan afka lagu maquuninayo lagu ilaalinayo magaalada beebeeyada sawaaxil ilaa Uganda ilaalinayso in halkay badii Muqdisho ciidamada magaalada Uganda hadda jigeysir ka daawanay wadankan territory ku jira la haysto waxaan leenahay kuwa baarlamaanka ku jira ha ka fiirsadeen waxay seexayaan marka Faysal waxa leedahay hadii tiinu fuli weysay gaalada la iska ilaaliyo ma waxaan ognahay waxaan u jeedaa wax weeyo inaan waxaan interest ba socda cid Soomaali interestkeeda wada waxaad qabsatay muu jacay wax ku horta qabsanaysa ma jirto sax ninkan kula cunaya inta maqaxya kula yimaada kimista kula cunaya Ingiriiski dambu ka leeyahay adduunka danta uu ka leeyahay laakiin dadku soo miisaanada in la iska laga fiirsado aan la aaminin boqolkiiba ma leh okay waxa jirtay habeen hore casho madaxweynaha Soomaaliya loogu sameeyay Birmingham oo aad ka soo muuqatay waxay noqotay wixii ugu hadalhaynta badnaa warbaahinta Soomaalida hadday idaacad noqon lahayd hadday website noqon lahayd haddii ay xitaa noqon lahayd Amin Caamir oo farshaxan comic sawir ah marka bal waxaad nooga warantaa waxa aad ka doontay cashada Xasan Sheekh Maxamuud casho ma hela waxaan ka doonay meelkii oo filan ugu tayo laba xafladood oo aan leenahay taayadooda isku dhawaa marka waxa ay halkan fadhiyaan madaxdii Soomaaliya ma waxaan damaa inaan soo sarano saddex qof ugu tagno laakiin marka waxaan ilaa ano shirkaas ka socdaana gacan soo gelinay baa soo salaamay yahuudiyad ma nihiin Falastiini dad Soomaaliya nahay Xasan Sheekh oo Turkiga fadhinay madaxweynaha Somaliland iyo Xasan Sheekh Djibouti markii la dabdalay af Soomaaliya way ku kulmeen wali way ku sharaxeen iyagu anu waan soo salaamay
dadka wax kaaga xiran maaha in cadaawad ka samaysatid magaranaysa ixtiraam isku leeyahay marka haddaan soo salaamay salaantu waa salaan waajiba islaam baynu nahay in fan laga dhigo kan wax qarqarooce la yidhaha amiin caamal inuu aniga iga dhigo nin kursi ka doonaya xamar dee say u tahay ceeb u tahay laakiin waxa weeyaan waan soo salaamay 5 bilyan la joogay sidii ku dhacay shirka waxa uu noo fiicnaa buu yidhi dee marka wax meesha ku jaban ma jiro Soomaali way dad ehelayn nahay maaha in phobia laga qaado wax weyn laga dhiga maaha marka saas ay accidentally say heedan isku meesha wax shir la galay iyo waxaanu wada cashada aan wada cashayno ana wax qodbadeeda dhawada shirkeyga qodbadeeda dhow baan ku yiri waxaan wax ma arka wax fana ma soo Turkiga wada joognay ku wada shirin okay waxa suuqa ku jirta in golaha wasiirada dawladda federaalka ah la isku dhafi rabo ama wasiirada lagu soo kordhin rabo marka waxa iyada lafteedu suuqa soo gashay maadaama Faysal uu kulankii ka qayb galay bilaa Faysal lagu soo daraa golaha wasiirada arinta maxaad ka oran lahayd dardina wax mushkilad wax ina haysto wax way walaydo waxaan aqliga geyn lagu ma hadlo anagu niyo dal gooniyaan nahay haddaan imka on lahayd Soomaaliland wax shafal lagu sameeyo cid babar lagu daraya waa macquul baa ahaan lahayd laakiin anigu dawladdan xamaar meel anigu aan uga soo galnaa anigu ma hiimihi anigu principal baan lahayd 20 years baan ka shaqeeyay Soomaaliland mar aan ku jirin siyaasadda haddana aan u campaign gareynay anigu waxaan u galay siyaasadda maaha kursi hel waxaan u helay Soomaaliya inay Soomaali xor noqoto qaladkii awooyaashay iyo abayaashay sameeyay lixdii aan saxno ayaan horta sameynay marka haddaan wasiirdoonay dad Soomaali wasiirada bixisa haddaan madaxweyne weyne way furanta laba jeer baan orday haddaan xusbi baan u madax wahay aan jecelnahay weli inaan helo magaalada saay doorashada marka dawlad aan jirin oo beenbeena oo meel la xukumin marka wax u doonanayo magac mustaqbalkayga magacayga waxaan dadka waxaynimo traitornimo way marka aan nin traitor noqon kara meehi aan hay man of principle wala yaqaana marka in qadiyada Soomaaliland qof dadka reer koonfurta reer Soomaaliya ka raarido oo ila kula doodo ila war maxay dhibaatay ku leedahay Soomaaliland maxay dhibaatay ku haysan moojaan iyo wixii hagaagsan moojaan ani nin maanta looga baqayo Faysal awraaba tagi doona Soomaaliya tagi waa naasimo hadda ka qaadataan picture kana ragii urur dadka urur samaystay ururadii markii waayeen xamar tagay taas qofkaas markii hore aan lahayn principle wuxuu doonayay in magac Soomaaliland in kursi ku gaaro mid doonayay wax mabda ma haysan laakiin qof mabda la maaha mabda ay kuma khamaaro okay bishii hore waxa magaalada Ankara ee dalka Turkiga ka dhacay shir dhaxmaray dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Somaliland shirka bal maadaama aad goobjoog ahayd maxaad nooga sheegi kartaa horta aadka aan ku sheegay Somaliland iyo Soomaaliya way kala tagay aan ku oranay Somaliland iyo Soomaaliya way kala baxeen 1990kii ee horta kala baxeen waxaan wax allaay maanta wax leverage nagu leedahay Soomaaliya oo ay barashana saar kartaa ma jiro dalkayga anaga gacanta u haysana dadkayga anaga ku haysana nabadii baa maanta xaga ma noo baahan dawladuhu ma nale war kulma oo 60kii ko midaysan ma noo timaadeeno aan wada yeelateen maantana amba kala taga amba wax kala isku yimaad dawladahaas horta ugu qasbay marka waxa weeye dawladda hore la fadhiisanay qodobana soo saarnay tanna waa la fadhiisanay qodobo kale soo saarnay waxaan ka hadlaynaa waxa weeye waa sidii conference building waa meelaha area-ka common area-ka inaga common-ka aan ka wada shaqeysano weeye wax ka wada qabsano anagu imka Uganda u dirtaan booliskiina waa idin tareerigeyn karnaa militarigiina waa idin tareerigeyn waa meelaha Soomaaliya wax ku tareerigeynaysan jirtay magaalada Goriya Cawli iyo Sheekh iyo Darwini xerooyinkii waa iska sameeyay wax ku baranaa yani waxba u tari karnaa laakiin qadiyadan Soomaaliya waa qadiyad dhamaatay alxamdulillah 91kii bay dhamaatay in waqti la isku lumiyo maaha Soomaaliland waa tan halka bay joogtaa anagii xamar joogna halkana joogna gacan shisheey kuma jirto dhibaato Soomaaliya meesha lagu baxsay noqotay Djibouti ku baxsanay kilalka shanaad ku baxsanay Soomaaliya xag u qaxday NFD u qaxday xiriir waxay ku yahay NFD haddii maalintii aynu ogaadeen qabsano oo Djibouti nala soo gasho oo shantii Soomaaliya anigu ku baaqeen aan keeno
markaan islaam meel qabsan ma lahayn wala wada burbur laha marka waxay ku xantaad meel lama wada dhigo experimentkan waa sameynay waynu ku fail garoonay inay guryahooda hagaajisaan Soomaaliya dadku hagaajisay way inay obsess ku noqoto ay ku dhigaan Soomaaliya waxay la tahay inay waqti lumis ilmaha maanta dhashay markaan gooni isku taagnay waa 22 jir kii xabadal markii la eeday xasuuqa eerkiina waa 25 jir boqolkiiba 7 dadku garan maayaan Soomaaliya they only know Somaliland carruurta iskuulada markaan arkay Soomaaliya maqlaan markaan Finland iyo waxaan Soomaaliya kale jirta Somaliland bay maqleen marka waxa weeye ummadana way tashatay si in wadan walaalo oo wanaagsan u sameeysan lahayd ummadda Soomaaliya lagu qaban lahaa meel kasta joogta laga shaqeeyo waxa marmar dhacda madaxda Soomaalidu marka ay inta badan iyagoo Dubai ka yimaada Somaliland in lagu handado oo qaar ay xarig ku mutaystaan marka arinta hadii madax Ethiopian iyo dhulkiina maraan u maleyn maayo inay dhibaatada mudan lahaayeen marka maxay ku dhacday in madaxda Soomaalidu iyagoon waxba dambi ah gaar galin oo inay dawladda u madax ka yihiin waxay taa dhacday dad Somaliland u dhashay lagu handaday markii Somaliland tageen علشان دولة سادحيل كهيسان أرنتها بل وحنا وقشك وحويرت وحنا أنا أكو قلدان وحنا ياكو قلدان ياكو قلدان وحنا أكو قلدان هاي ما كانت حالة توكلة لمن بنويم حفلة دي نويم هالكم يكون استعانة كي ما كان صار معايا أدبرت لها وين صار شرفين وحلا كسو سارة باقي كسو سارة تبدون الإنجليزي بعد عنك 6 ده لما ينهي كسو سارة أنا ما كان لفري يعني صوت سلام يقول أنا الصومالية دعنا كيجي من سيتي لما أقول مدحوين الصومالية كل مساعي صوت صار سلامت عن صوت سلامي وحي كده عوض وبشيء كسعود أركي هرتاسو حكوا توسي صار تذكر وسيدو صص وقبه صوماليا شعبي قوي وبريتش كندوني إن المكان أو الإسنو وده هذا أن دون الكراسة أنت مدح الله حرب مدح الله حلو حويا مدح الله حلو هذا مدح وحي كنت مع ده هذا تيجي سوي مكان تيجيو وضع إثيوبيا دولة فيزا قاطع وأنا صوشة لكن إن وضع كان صار أو وسيرة حية أو هرجيسة نحتاجهم بنحتاجهم دولار هذو ترانس دي دو ترانس جوا حق ومريا لكن هذو إسكت صار قلت ذلك سومالان صار حيل هيا سومالي كده كان حيل كان واحد من البلاد فيزا وكي مادة لكن إن حيل هيا أو سياسي ما كان الأركان كل بالبلاد إسكت أحسن ده مهرجيسة هو حوي إن كريستيان وكلو دين تشري فدين ما قلنا صدق ممكن كريستيان دين فديو ما بدي سومال وين بيو فدينيا وضل كنا جواليا تبقى وين القابنا بوي كان كريستيان كل مدي اوكي الشركه أنكرة انت إنه كجرنا شركه أنكرة حسبيده معارضك وحسبيga uu kamid yahay xukuumaddu horay u sii kaxaysay si ay marxaati uga noqdaan wax meesha ka dhacaya marka dad badan oo reer Somaliland oo dadka Somaliland degan laakiin aan ahayn beeshaad ka dhalateen ba waxay dacwad ka keeneen 4 nin oo isku reeri meesha isku raaceen xisbiga mucaaradku reerka ahaa dawladdu reerka ahayd wasiirka iyo madaxweynuhuba marka maadaama aad ku andacoonaysan Somaliland inay dawlad tahay oo ay maxaan yiraahdaa in Soomaaliya sidaad sheegtay ka maarantay oo ka go'day maxay ku dhacday maadaama dawladdu la go'aansatay in xisbiga marxaati laga galiyo waxa dhacaya in beelaha kale oo bariga iyo galbeedka badega la kaxeeyo si marxaati uga noqdaan waxa ka dhacay xisbiga ku sheegay marxaati meesha waxa weeye waa arin qarano markay arin noqoto qadida Somaliland xisbi qolo kaliya ka hadli kara ma jiro waxa ka hadlaa waa inay noqotaan national commission loo dhayahay in noqoto marka gaarka ma hayne waxaan nahay qayban ka nahay talada Somaliland halka ku dambeynayso qaladna waa lagu sheegay 5 xubnood baan nahay anagu ku Ingiriiska ka qayb galay ku Tuurka ka qayb Dubai ka qayb galay 5 xubnood wada hadalada wada saddexna waa beesha dhexe labana uu yahay deputy speaker ko hadda iska speakerkii gudoomiye baarlamaanka si u shaqeeya iyo wasiirka dhalinyarta iyo shaqada labaduba waxa weeye wax beeraha kale بربي الساسان أهد لحدن كمركي أنو سيحن لقي سيحي هالكن لكن دتكو حي أركان مدحوينها وسير كارمها دي بدأ قدومي حسب قدومي حسب قوداني أنتنا وبالغورة ما أنا كل شيء ما أنا كل شيء تاسي واحد ويكبرنا ما كنا نسديد بابا نقنا ويكون شرتي لكن أنا ولا هذا وشان تاسي هكى أردت كقول توحوي أنا جاي قرهري
waxa weeye waa marka Washington la tegey waa Mareykan halkii laga fajiciyay madaxweynaha leeyahay waxa isku wadatay isku reer taasna waxay ka dhalatay awoodii dalka ayay beesha dhaxwal qaatay marka la yiraahdo wafdi baa imanaya ay yimaada madaxweynaha hay yimaada wasiirka arrimaha dibadda hay yimaada wasiirka madaxtooyada hay yimaada wasiirka qorsheynta hay yimaada wasiirka macdanta inta way isku reebeen noqotay ma waxaan hadda aan doonaa markaan national dialogue furna hadda aanu ka hadlayna insha Allah ta'ala John qodobada aanu saxayna waxa weeye in dib loo saxo saami qaybsigii lagu soo gooyay Boorame koob iyo 90kii markii aan lagu shiray Burco goolistaag lagu saxeeyay saddex qodob baa lagu heshiiyey saddexda qodob waxa ay koob in ka baxno unionkii Soomaaliya laba in la isasaamaxo la iscafiyo civil war saddex in aan dawlad loo siman yahay la dhista qodobkaas dhaxad baa jaban hadda oo dawladda hadda jabisay ay siraayo oo ahayd in dawlad reer Soomaaliya oo dhan u dhan yihiin marka halka wata hadii waan ka hadalno wata imka aan saxayna insha Allah ta'ala laakiin wada hadalada shantiida asaawiyi shantiida waxa weynahay saddexaas iyo laba khaleeraana waa 60kii 59 57 London markii laga wada hadlayay waa shantoodii Faisal waxaa jirta arrin kale oo iyaduna aad muhiim u ah oo aan jeclaan lahaa bal inaad dadka iyadana u bayaaniso Soomaaliland waxaad sheegteen inay tahay dal dimuqraadi ah dal maadaama dimuqraadiyadda aad qaadateen freedom of speech uu ka jiro oo xorriyatul qowl qofku uu afkiisa u bannaan yahay wuxuu doonay inuu sheego waxaad kaloo sheegteen in qofka fikirkiisa u bannaan yahay maxay ku dhacday muwaadiniinta Somaliland dadka reer Somaliland u dhashay ee fikirka qaba ah in Soomaaliya aan la kala goyn in la cadaaweeyo oo aanay Somaliland tagi karin madaxda ma aha dadka qaba fikirka Soomaaliland baarlamaanka qaar ka qayb galeen qaran xitaa baarlamaanka ku jirin oo shakhsiyaad caadi ah oo laakiin fikradda aaminsan haddana dhibaato ku qaba joogidda iyo tagidda Somaliland waxa weeye cid aan siyaasiyiin ahayn oo lagu qabtaayo magaranaysaa yiraahdo tag ma jirtee baaxishadu inoo furan yahay ehelnimadii iyo xididnimadii way inoo fiican tahay dadka Soomaaliya kama hadlayno waxaan ka hadlay adigu reer Somaliland baa tahay siyaasadahan waxaad aaminsan tahay in Somaliland go'do ninka reer Somaliland ee halka aad ku dhalatay kugula dhashay ee laakiin siyaasadiisu aaminsan tahay in Soomaaliya la kala goyn maxaad cadaawad ugu qaadaan Somaliland loogu eriyaa taas way dhamaatay markii aanu halgaminay qolan naga soo horjeesto waxaan Soomaaliya kala jarin qolan waxay may waxa weeye waxay way soo qaadana ilaahay guushu xusiyay dadkii doonayay inuu gooni isku taago meel kasta adduunka ka dhacda ay kuwii laakiin calaamad ka hadlayaan meel kasta iska dhacday qofka ka soo horjeeya mabda'a iyo referendumka Soomaaliya qaadatay iyo dastuurkiisa ay yiraaha Somaliland waa Soomaaliya lagu daraya waa dambiilo oo nimanka Bangladesh waxa tira Bangladesh Soomaaliya goosano dhikumu kala dhexdhexeen bayntu midilay marka hayla xusbaan ku furnayo waxaan ku daraya Pakistan hadda kuwii bariga ka hor yimi lagu qaadaya in 4 sano ka bacdi maxkamadda saaraya waliba anagu waan saamaxnaa dadkii anu haddaan fuul lahaana kuwa shirar ka soo qayb galiyay laga bilaabo Djibouti 1 way wada liiskarisin marna insha Allah ta'ala wala qaada kiiskaas Djibouti 1 kuwii ka soo qayb galay ilaa kuwii ma ka qayb galay ku jira xaqiiq ka dambiilaya ana waa traitors waa khaaimiin dadka dhabarka laakiin fikirkoodu baad ku colaadinaysaa sida adigu u qaadatay inaad go'daan ba iyaguna u qaateen inaad waa qalqaas ba orday marka Ingiriiska waxa tiraha shabad ka dhex sameeyay tiraha waxaan ku darayaa France ma ku daraya imanka soo ismaaragtay Ingiriiska maadaama aad soo qaaday dadka reer Scotland ee aaminsan in Scotland go'do lama colaadiyo kuwada Scottishka iyaguna aaminsan in Scotland Britain laga goyna iyagana lama colaadiyo qof walba fikradiisa xor buu u yahay taas wata Soomaaliya laga doonayo inay colaadin waan referendum ma dhacnayo go'aan isku taa wata laga rabo laakiin anaga qofka Soomaaliland ee waxaan isku ogeyn ee ummad isku raacday daba marteeya ee ka qaata mansab Soomaaliya ka qaata ila ana Soomaaliland mataliya waa dambiile ay dawladihii Soomaaliland ka saxdeen laakiin anagu haddaan qabano ilaa 91 kuwii ka qayb galay Soomaaliland kamana shaqeyn karaan dhaqaalaha waa laga joojin doonaa
black list waxay dhaabaa jiraan 91 ka war ku 91 ka hor ka waran kuwii la shaqayn jiray dee kaasoo waxay fulinayaan isku darkii berigaas isku fulinayaan oo dowlad heshiis lagu inkastoo heshiis dhacay in la midooba lagu heshiiyey waa lagu heshiiyey wasiiraya ka mid ah wasiiraha in badan ka ahaa siyaasiyiinta marka kaasi waa keentana dee marka xubnaha soo baxay waa raggii halgan galay wax u badnaa raggii siyaad baa la soo shaqeeyey laakiin waxaan ku leeyahay dadkan imanka leedihiin Soomaaliya rabaan waxay midnimay rabaan waa khaa'imiin ummadii khaa'imaya oo waayay dawlad awood leh talaabo ka qaada laakiin shacbigu ma saamaxay anigu ma saamaxana dad cidnahay qofka iska tagay ee go'aankii 19 la saxay ee referendumkii ummadda beesas qofka wala ila diinta islaamka kale waxay qisaman qaleey ku iibsadaan oo kale waa kuwaas oo kale waa khaa'imiin weey okay kuwa waxaad ka warantaa tusaalahan khaatumo oo kale ama maakhir ama waxa jira group iyaguna la magac baxay awdal state kuwa maxaad ka waran lahayd horta mushkiladu waxa weeye meel kasta way jirtaa dad imaka dad dawladda marka jirta decision soo ka soo horjeeda way jiraan magac iskala baxa laakiin anigu waxaan leeyahay reer Somaliland wax kasta waa laga hadli karaa saami qaybsi halagu noqdo waa la oran karaa gobolada halagu noqdo waa lagu noqon karaa laakiin waxa aan lagu hadli karin go'aanka goon istaaga adan wax moodiya dad buu naga qaba laakiin dad dagaalka kula galay dagaalka dad galay oo jihaadka aad sheegaysa ka qayb qaatay oo waxa jooga maanta aaminsan in Soomaaliya la kala gooyn oo moodka iyo noolka aad sheegtay ka baxeen ka warniga kuwa muxuu isu bedelay waay marka hore wuxuu la dagaalamayay rejiimkii jiray haddana wuxuu aaminsan yahay maadaama rejiimkii tagay in Soomaaliyada walaalaha oo siman ay walaalowdo oo sidaas ugu beerto majority rules the minority waxa weeye aqlabiyada dadka la respected 97% ba dadka yiri referendum loo qaaday okay wala ixtiraam go'aankaas waxa jiray imka doorashooyin ka dhacay Somaliland oo ururo badan caawdeen oo sheegeen in codkoodii la xaday oo lagu shubtay oo commissionku wax istaba mariyay marka referendumka aad sheegtay si lagu aamini karo maadaama dad reer Somaliland oo Somaliland ba jooga ururadoodii ay ku doodayaan in la daba mariyo irregularity meel kasta ka dhacda irregularity marka referendumka laftiisa irregularity waa kaasi soo overwhelming ma buha kaasi ummadoo dhan ma wade anigu soo ma aragsid laba jeer baan madaxweyne wada labada jeer ba fair uma dhicin waliba kan dambe ballot paper xitaa la soo samaystay kuwii aan ku ordinay doorashada imika soo dhacday waad aragto waxba dhacay haddana waxa weeye waa the negative side of the election of the democracy macnaheedu maaha marka haddaan waxyo kaa waayo wixii aan kaa doonay Soomaaliya ma jirto waa opportunity marka la yiraahdo markiisa hore ayaanu ka mabda ka isdininay oo magaca ku isticmaalay inuu boos ku gaaro okay sida aad uga doonaysaan Soomaaliya inay idinku xushmayso fikirkiina inaad ka go'daan maxaad ugu xushmayn laadihiin khaatumo iyo maxaan yiraahdaa maakhir iyo awdal fikirkooda iyaguna inay Soomaalilandnimada ka baxaan walaba kiiste kaas kala jaad anagu dal baan dalka saarnay dal iyaguna dal bay dad ka saarayaan dad Somaliland gobol kama bixi karo wasi Ethiopia kale ma ogaadeen ka bixi karta wata lagu qabsaday waa international anagu international borders baan ku jirnaa hal talaabo mar soo talaabay marka qofkani uu khaatumo la baxaya food baa dhacay waa laga batay dadku wuxuu raacay in gooni loo baxo xaq wuxuu leeyahay in xuquuqdiisa helo qofka reer Somaliland laakiin tribal boundary baan sameynaya oo sool baan iyo sanaag baan oo reer wada degan yimaan u kala jeexjeexaya dhulbaanti iyo habar jeclaan xad u sameynaya galweyn iyo waxaan u sameynaya Muuse Ismaaciil iyo Warsangelaan xad u kala sameynaya waa magnaanad waa tii naga soo galay markaas waxa weeye waxaas aqliga meeyaa in caruurta iyo dumarka been loo sheego maaha in rag dhan mutacalimiin in maanta ilahaan waxaanu sameeyay intay tuuliyar fadhiistaan ilaa 3 madaxweyne u sameeyay wax aqliga la maahe wixii umadaas jeceshahay power sharing ka xaq bay u leeyihiin haynaad maanta madaxweyne u sharaxinay sharata riyaal aha maanta xadan 3 xisbi idinka haystee tuu ka soo dhexbixi kara sidoo ka soo dhexbixi wax ka soo dhexbixi adigu ma ogashay xisbigaaga in dhulbahantaa maanta uu istaago
hadduu maanta ilaa waan istaagaya Xisbiga aad guddoomiyaha ka hadduu tahay. maanta ilaa waan istaagaya ninka la yidhaha xagla toosiye in other body uu yidhaha waxaan ahay waxaan doonaya in madaxweyne noqdo oo istaago way u furantay. xaguu ka istaagaa 3 xisbi oo wadanka ka jira oo la ansixiyey 3dii xisbi riyaal saddex xisbi soo dhex bixin mid afraad baa jiray. riyaal wuxuu fursad ku helay geeridii cigaal allah u naxariistay. kan kana wuu furantay haddaan aragnin maanta soo ninka haddaan maanta aan aragnin ninka soo saari karaya u cid yahay nin dhulbahanta yahay jamaal dib u joogsan dhulbahanta soo saarna haddaan ognayn inuu food keeniyo uu soo saarayo wallaahi bilahi waan u fasaxayna. okay maadaama aad ucud ka hadalnay waxaad tahay guddoomiyaha xisbiga ucud waxaad ku guuldareysatay 2 doorasho hore markii ugu dambeysayna waxaad sheegtay inaad ka fadhiisan doonto guddoomiyenimada xisbiga haddaad guuldareysato waad guuldareysatay weli waad soo taagan tahay marka maxaad damacsan tahay sharaxnimada horta inaan ku waran imika maanta waxaan dawladda mataqaana nawaab shariif oo soo noqday imsa jeer u dhacay nawaab shariif in badan natayaha nuugteen jeer u dhacay haddana kii mar baaba xisbigii kala baxay haddana waa kii soo noqday horta siyaasadda lagama walaco laakiin way ka walacaan reer Soomaaliya qofka waa naga walaceen moogta musharaxnimadii ma hadda sii daynay musharaxnimadii sii daynay laakiin anu waxaan dul galay siyaasadda maaha inaan madaxweyne noqoto in Soomaaliya ilaaliyo oo siyaasadda taladeeda gacanta ku hayo. okay maadaama musharaxnimada aad taabatay dad badan baa aaminsanaa inaad marka hore Jamaal meesha u keentay inaad ku shir tagto oo marka xisbigu hirgalo aad haddana halkaagii ku soo noqoto Jamaal ma u daynaysaa musharaxnimada Jamaal iyo lagu haystaa aniga guddoomiyaha haystaa Jamaal waxa laga rabaa inuu xisbiga guulkeeniya laga rabaa saa laakiin inuu guddoomiya laakiin se waxa laga rabaa inuu guusha saaro guusha isaga laga rabaa waxaad weydiisaa guul ma keenaya Jamaal weydii laakiin hay oran maadu guusha Jamaal laakiin hay weydiinin inuu Jamaal guuleysto iyan kale waxay ku xiran tahay sida shacabku ugu foodgareeyo laakiin adu Jamaal halkiisa muddo soo daayba macnu meel soo maray ma jirtay ama meel soo maraa meel soo maray ma jirto isaga dad baa jira waxaan ka shaqeynayo markay arkaan inaan guushi helino ay markay tashiish kale waayeen ayaan Faysal u deyn maayo laakiin Faysal markii hore uu daayay markana uu daayay. okay gabagabadii shirar badan baad ka qayb gashay oo maxaan idhahdaa Soomaaliya iyo Somaliland lagu wada hadal siinayo international community ka qaar badan oo kamid ah wad la kulantay 20 sanaad ku dhex jirtay siyaasadda Somaliland iyo cod u raadinta ixtiraafkeeda marka maxaad isleedahay miyay hirgeli kartaa inay Somaliland gooni isku taagto horta waxaan ku sheegay wax ummadda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadda rabtaa hirgala ilaahatu shacab oo ilaahatullah waan ognahay imika wadamo badan inaan Somaliland inay ixtiraafaan dawladda hadda joogtana ay sii fogeysay ixtiraafkii aad u sii fogeysay laakiin waxaan ku sheegayaa Somaliland tayaa shacabku yeelma noqonaysa waa iska xiiqaya waa iska dadka iska xiiqaya qofna lama qasbi karo maanta maan cududna loola iman maayo foodna loogu iman maayo marka wax lagu qasbi karaa ma jirto dadkii taasay doorteen Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala taasoo ku guulsiinaya laakiin Soomaaliya waxaan leeyahay maanta Somaliland waa meesha qoray maanta wadkii Soomaaliya oo jiray nabadda ee farshaqada sharafta inoo yeeshay wartii kala hada doono tii kala wax marka su'aalaha marka dadku weydiinayaan Soomaaliya iska dhaafo war Soomaaliya Soomaaliya tii kala soo leeyahay wad aragtaan jubbooyinka waxa ka socdo aragtaa arrinta jubbooyinka maxaa fikradu aad ka qabtaa waxa weeye dawladdu sameeyay waxaan ilaa dawlad goboleedka qabaa'il ma sameeyo waxa sameeya dawlad dhexe sameeyay dawlad dhexe Soomaaliya hadday tiraa federation gudaheeda ma qaadanaa oo qabaa'il ku fadhiyana dawlad dhexe ma iman doona dawladahan jaarka neem Djibouti Kenya Uganda bahashan ilaa Ethiopia mid kastaba ma ogola inay dawlad Soomaaliya adag samaysanto waxay ka faa'iideyaan maqnaashihiina marka haddaad idinku wadanka kala goysaan oo Soomaaliland soo hankoodii ma anagu laba wadan oo jiro maan kay kala noqonay ismaaciil mageere waa kan uu ilaahay Soomaaliland jecelahay ha keeno Soomaaliya Djibouti ha keeno sidoo hore lama keeno ha keeno Ethiopia ha keento Suudaan shanaad Kenya sawaaxiliga ha keeno NFD shanta Soomaaliya kuwaas laakiin wax Soomaaliya dadka dush ka saaray
ama garan mayno wax ka saaray shanta Soomaali bay heeday bal waa kaas Ismaaciil Cumar Geele waa kan idin imanaya le Soomaali fanaaniintiisa isku oohinisay haddii ka dhab tahay yaa isku way waa Soomaali yimaade laakiin Somaliland mar dambe talada cid la yeelan maayo qofkii la doonaya anagoo dalaha nala saaxiib laakiin idu jaani Soomaaliya waqti iska lumin Xasan Sheekhna wixii uu ku cabdisanaan ku hal jiray Cabdi Qaasim uu ku hal jiray ninka Cabdi isnu gobo waa moogti in kastoo ahayn magaalada aanan shicleen laakiin haddana carabkiisu ilaalin jiray kuwa reer banaadirka ilaa laga bilaabo kan la yiraahdo Cali Mahdi ay waxaan ku hadlaa Raaskambooni ilaa Raaskambooni waa xukuma waxaan meelan soo gaari karin war tuulo aleediin maamulka sameeyaan ku ilaa moogti maamul marka habeen hore waxaa ku hadlaa yiri muxuu Xasan Turkiga waan kala hadlay maalinta waxaan ku yiri war afkaaga hagaajisa nimankiina reer banaadirka ma taqaanaan dadka sida loo macaamilay afkiina xijiyaan ku yiri oo waxaan suurtageeno cadaawad dhalinaya si joojiya marka adeer Soomaaliland annaga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala na abuuray nagu abuuray annaga Ilaahay ka soo taladeeda hayna halkaan u marnay marisa Soomaalina annaga isku keenay Xasan Sheekh iyo Cali Mahdi iyo Cabdi Qaasim awooyasha raaco weligood yahay Soomaali ma talin never in my history حبيت isku sheegaysa ogtahay haday Soomaali isku meesha anaga Soomaali isku keenay anaga kala jarnay maanta oo tan inoo dan maaha marka inay riwaayad isku sheekeeyaan maaha anaga nagu xidhan tahay Cameroon kuma xidhna Cameroon Hargeysa walaa bilaan ku keeni karin Faysal hadda koor waxaa jirtay inaad tiri qofkii Soomaaliya magaceeda laga maqlo carabka hal la jaro aan kula kaftamay maanta adaa madaxweynaheedii la fariistay xagga lagu jaraa ma anu waxaan qofka Soomaaliland ku halmaama Soomaaliya oo dadkayga wali maskaxdoodu marka space ku carabta joogayo Soomaaliya tagay fasax wanaagay Soomaaliland u jeeda kuwaas aan carabka laga jaro si magaca Soomaaliland u bartaan inanta reer Puntland kuma qaldanto Soomaaliya Puntland tay qorta kuwayga miya ilaa hada Soomaaliland yani saan u fahmay waa kuwaas aan la hadliyay aanu Soomaaliya waxaan wanaag badan tabacsanahay markii Ethiopia haysanigi qolay ka hadli jiraan hay laakiin waxaan leeyahay Raaskambooni ilaa Raaskambooni ma xukuma joojiya waxa ma xukuntaan tuuladii ma xukuno ilaalinaya magalanaysa sawaaxilada ilaalinaya foolxumadiina qaad ka joognaa ما شاء الله أدبر محسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much. كل ما كورتشي. شكرا محسن.